أهلا بخيرك يا كريم يا أيها الشهر العظيم شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان. بقدومه نلنا المرام بشرى لمن صلى وصام في روحه نزل السلام في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الصيام فجاء الخير أجمعه ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح. ولا ليال وحا إنو قابلينا شهر رمضان شهر القرآن. الله سبحانه وتعالى وحو إنو كيني أدون كان إن أين عابدنا. الله سبحانه وتعالى وحو لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله سبحانه وتعالى إنغو أو قدنينا وحو إنو سمي الله سبحانه وتعالى مواسم إيا طاعات سقفك آنو أقدال عباداتك الله سبحانه وتعالى وإنو جدي. وحينو أرقنا صلاته وحينو أرقنا صومك وحينو أرقنا سكدي حجك انت صورا وحا أي كتر جميسا inaanu qofku malal ama daal aanu kaga iman gudashada cibaadaadka ama waajibka ama xaqiiqada dhabta ah ee dunidan aan loo keenay. halka waxaanu ka garanaynaa inay diintu tahay yusr. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra. walal naftaada weydii istaad intee leeg ayaad qaadatay ama sahay intee leeg baad qaadatay maadaama adduunkan uu yahay marxalad intiqaal marxalad laga gudbayo oon la joogay shidaalkaagu ma buuxaa saad intee leeg ayaad qaadatay hantida ama saadka aad qaadatay ee aad haysatid ma ku gaadhsiinayaa aakhiro. waxa weeye su'aal loo baahan yahay qofku inuu naftiisa weydiiyo intaanad xisaabta weyn aanad gaadhinna in aynu dhammaanteen aynu is wada xisaabino waa mid loo baahan yahay. bisha ramadaan in laga faa'iidaysto ayaa fiican oo mudan. ugu horeyna Allah subhanahu wa ta'ala inaad u mahadnaqdid imisa shakhsi ayaan bisha Ramadaan aan gaadhin imisa jiiraankaaga ahaa ama walaalada ahaa ama ehelkeen ahaa ama inaga ag dhawaa ayaa bisha Ramadaan aan soo gaadhin. waa shukri lagaaga baahan yahay inaad Allah subhanahu wa ta'ala aad u mahadnaqdid gaadhistaanka uu ku gaadhsiiyey bisha Ramadaan. kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin من بين أهل وجيراني وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني. والله لو باهن يهي بشهر رمضان إن أنكو قابلنا قلب صافية يتوبد الله سبحانه وتعالى وحليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قلبي جينا صافية إن أنكو قابلنا بشهر رمضان سي أي أعماش أي نقبنينا ay dhadhan inoogu yeelato waa mid fiican oo aynu xiqdiga iyo xasadka iyo wax kasta oo xun aynu iska saarno Allahna subhanahu wa ta'ala aynu u noqono xaqiisana aynu u laabanno bishan Ramadaan daacaadka aynu ka faa'iideysano. ya man ada thumma i'tada thumma ightaraf thumma ra'a thumma intaha thumma i'taraf abshir biqawli Allahi fi ayatihi in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. soonku walaal الله سبحانه وتعالى يا صنك إسكاله. الله سبحانه وتعالى وحول لي هي إنه لي وأنا أجزي به. وحل فرا بشهر رمضان الباب ذا جنة وحل حراء الباب ذا النار وح لكتين ذا يا شياطين أنت صورا وحل نوت يارين يا أما أي أطهي تحفيز إن نكفى إلي سنه بشهر رمضان بالكورن هدي أكمل نقطة ولال بشهر رمضان هو الله سبحانه وتعالى وكي لي قاريو أن كفى إليسا وخساري معلم ما كمدا أي النبي صلى الله عليه وسلم يسوى منبر كسارا وحا يري آمين آمين آمين. سحابة أيا ويديسي رسولك إلهي حانو كامق ليني آمين 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 أديب منبر كسارا محا دعي نوفسر. الجبريل يدعو والرسول يؤمن. حديثك أنه وذكرنا إنه حديثك وريي أبا هريرة وحا النبي صلى الله عليه وسلم وليه رقم أنف امرئ وحا
halaagsamay yacnii qof ayaa khasaaray oo halaagsamay qodobada saddexda ah ee nebigu uu aamiin lahaa ee uu jibriil u sheegay maxaa ka mid ahaa qof bisha ramadaan ay u soo gashay oon loo dembi dhaafin u fiirso waa maalin jimce waa mimbarkii rasuulka waxaa ducaynaya jibriil afdal alrusul almalaa'ika waxaa aamiin leh nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo ah afdal alkhalq intaasoo dhan waxay iskugu tagtay ducada ah waxa khasaaray oo hoogay qof ay ramadaan u soo gashay oo aan loo dembi dhaafin isku day inaad ka faa'iidaysid bisha ramadaan si dhaba isku day inaad bisha ramadaan aad ka dhigatid maxado aad u beeratid si aad aakhiro aad u goosatid waxaa laynooga wada baahan yahay haddaba in aynu dejisanno khudo ramadaaniya taasoo inaga caawinaysa inuu camalkeennu si perfectliya oo saxa uu u socdo ugu horrayn waa inaynu allah subxaanahu wa tacaala kaalmo weydiisannaa inuu inoo fududeeyo acmaasha aynu samaynayno waa inaad ula tacaamushaa bishan ramadaan in ay tahay bishii kugu dambaysay noloshaada marka aad sidaa aad soo xaadirsatid ood maskaxdaada gelisid waxay ka dhignaanaysaa in aad u dadaashid oo aad acmaashan aad ugu dadaashid bishan ramadaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay khudada inaad ku darsatid inaad la saaxiibtid qur'aanka maadaama ay tahay shahrulqur'aan inaad jadwalgaraysid oo aad ka fikirtid taraawiixda xageed ku tukanaysaa taajudka xageed ku tukanaysaa in aad sidoo kale ka fikirtid yaad iftaarinaysaa maadaama ay bil ramadaan ay tahay iftaarkana axaadiis badan ay ku soo arooreen man fadara saa'iman inuu leeyahay ajarkiisa oo kale inaad ka faa'iidaystid wakhtiga oo aanu maalaayacni iyo waxyaalo hoose oo yaryar aanu kaaga mashquulin aad isku daydaa 29kaa cisho ama 30kaa cisho in aad si saxa oo dhaba aad uga faa'iidaystid oo ayna dheelleel kugu dhaafin saacad kasta iyo daqiiqad kasta ay ku xisaabsanaadaan waayo aniguna ma ogi adiguna ma ogid ramadaan soo socota in aynu gaadhi doono ee tan ku xigta waxaynu allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in uu ramadaanta uu ina gaadhsiiyo allahuma balliqnaa ramadaan haddaba bisha ramadaan acmaasha la qabto acmaasha ugu fadliga badan bal aynu wax ka tilmaanno sawm maadaama shahru siyaam ay tahay shahrulqur'aan ay tahay aynu uga horraysiino soomka waxaa habboon bishan inuu qofku ku dadaalo inuu qofku aanu noqon mid ka sooman cunto iyo cabbitaan ee uu noqdo mid ka sooman wax kasta uu noqdo mid ka sooman xanta uu noqdo mid ka sooman dadka in laysku diro uu noqdo qof ka sooman wax kasta oo xun oo muxuu ahaayey acmaashaada nuqsaan ku keenaya ama dibidhac ku keenaya sidoo kale acmaasha ugu fadliga badan ee loo baahan yahay qofku inuu bishan kaga faa'iidaysto waxaa ka mid ah in qur'aanka la akhriyo nabigu waa kii lahaa sala allahu calayhi wasalam man qara'a xarfan fii kitaabi illaahi falahu xasanah waalxasanatu bicashri amhaaliha qofka akhriya xaraf ka mida qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa xasana waynu wada garanayno halkii xasanaba in ay tahay daraja ama 10 darajaad ay tahay allahna subxaanahu wa tacaala uu sii badinayo uu sii laman laabayo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yahay waasicun caliim shahrulqur'aan haddaba walaal in aynu qur'aanka aynu eegno booskii ayaynu ka taagannahay in aynu ka agdhowaanno in wuxuu ina farayo aynu qaadanno wuxuu inaga reebayana aynu ka tagno in aynu ka dhiganno mid inoo dhow mar kasta aynu ka dhiganno mid ina faraya waxa fiican inaga reebayana waxa xun camalka saddexaad in adducaa walistikfaar aynu ku dadaalno allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan aayadda haddaynu u fiirsanno waxaa horteeda ah aayaatu siyaam baa laga soo hadlay gadaasheedana aayaatu siyaam dhexda waxaa la geliyey adducaa waa muhiimadda ay leedahay bishan ramadaan ducadu xataa markaynu u fiirsanno aayaadka ku soo arooray weydiinta nebiga sal allahu alay wasalam la weydiinayo waxa ka dambaysa qul hadaynu eegno yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihima wayas'aluunaka can alahilla qul laakiin u fiirsa aayaddan
وإذا سألك عبادي عني قل ما فإني قريب. halkaa waxaynu ka dareemaynaa ama mucjisada ku jirtaa waxa ay tahay in Allah subxaanahu wa tacaala bishan ramadaan fadligeeda uu ducada uu aqbalayo, ducaduna ay tahay mawsimkan acmaasha ugu fadliga badan ee lagaga faa'iidaysanayo. awqaadda ducada la aqbalo haddaynu wax ka tilmaanno, وبالأسحار هم يستغفرون، وقتك سحورك، وقتك إفطارك، وقتك ساعدة جمعها كجرتا إن لبارو، وقتك أوروب دآيو سيدوك ثلث الليل الأخير. أما أنت ضمن هبينكي إنه قفك دعيسته وساعدها وكد دالو. الله سبحانه وتعالى أدون كيسو حدي أقمعا أتاقكر مسوع لي سفرا. إذن مركا إن الأوقات دا كد داشي الله سبحانه وتعالى أدوي ديستي وحاد أباهن تهي ومد حبون ولو باهن يهي. الله سبحانه وتعالى مركا أدبريدنا دعاء دو صدحهم بينقون ولكا ودع ميستو إما من لغو سودة تيو أدونك ولغو كانو إيو مد آخر لغو كيديو إيو مد بلايكو بسو سعوتي لغاق حجابو. قضبك أفراد أعماشا وغفر لغا بدن أنت بشن لغو جرو لو باهن يهي إنه كغفا إليسنو وصدقدا. رسولك صلى الله عليه وسلم هو ديقسي رمضان تنا رسولك صلى الله عليه وسلم صفada uu ku sifaysnaa uu sin la bilaabi jiray. aynu isku dayno in aynu ku dayano rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo aynu wax bixinta aynu ku dadaalno, sidoo kale in aynu quudinta iyo dacaamka aynu ku dadaalno khaasatan bisha ramadaan, iyo in aynu cid kale afurino. yudcimuna at'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira. qodobka lixaad alqiyaam was-salaah, in aynu salaada ku dadaalno, in aynu taraawiix hadday noqoto, tahajud hadday noqoto, sunnayaasha hadday noqoto, in aynu ku dadaalno. intaasoo dhanna waxaa kuu sii dheer in aad waajibaadka aad ugu horraysiisid 5 salaadood, waayo salaadu waa awal maa yuxaasabu alcabdi yowma alqiyaama. hadday salaadu hagaagto maalinta qiyaamaha acmaashoo dhanna way hagaagaysaa. hadday salaadu xumaatana maalinta aakhiro acmaashoo dhanna way xumaanaysaa. qodobo kale oo fara badan ayaa jira, hadday noqoto silatu raxim, hadday noqoto alcumra. intaasoo dhan oo aynu tilmaannay waxa ay tahay acmaasha ugu fiican ama ugu wanaagsan ee bisha ramadaan la doonayo inuu qofku uu kaga faa'iidaysto. allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu inaga aqbalo bishan ramadaan. ballanteennu waa in aynu beeranno iminka si aynu u goosanno baritoole. aad iyo aad baad umahadsantihiin daawashadiina. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بخيرك يا كريم يا أيها الشهر العظيم، شرفت بالذكر الحكيم يا رمضان. بقدومه نلنا المرام، بشرى لمن صلى وصام، في روحه نزل السلام في رمضان.